Aasaaska dabeecadaha. Asalka dhammaan dabeecadaha xunxun waa kibir, dulli, iyo liidnimo. Asalka dhammaan dabeecadaha wanaagsan waxay ka dhashaan khushuuca iyo himada sarreysa ee doonista raalli ahaanshaha Alle, isla weynida, fahanka, xumaanta, muujinta ama ismuujinta, maseerka, dulmiga, qallafsanaanta, kibirka, talo diidka, rabitaanka xilalka sare ama ku dhagnaanshaha kursi, jacaylka sumcadda iyo madaxtinimada. Waxyaabahaas oo dhan waxaa lala xiriiriyaa ama ay ka soo farcamaan dabeecadda kibirka, beenta, khiyaanada, munaafiqnimada, dhagarta, hunguri weyniga, walaaca, cabsida, bakhaylnimada, wahsiga, iyo in la isu dulleeyo cid aan Alle ahayn, doorashada waxa qiimahooda hooseeya halkii la dooran lahaa waxa fiican. Dhammaan waxyaabahaasi waxay ka soo jeedaan dulli, liidnimo, iyo nafta oo daciifo ama nafta oo daciifto. Akhlaaqda wanaagsan sida samirka, geesinimada, cadaaladda, karaamada, xishoodka, dhowrsanaanta, deeqsinimada, dulqaadka, cafiska iyo saamaxaadda, adkaysiga, tawadduca, qanacsanaanta, runta, daacadnimada. Waxyaabahaas oo dhan waxa ay ka dhashaan khushuuca iyo himilada sare ee qofku leeyahay. Ruuxii hamigiisu sarreeyo oo naftiisu khushuucdo wuxuu ku dhaqmaa dabeecad kasta oo wanaagsan. Ruuxii hamigiisu hooseeyo oo naftiisu kibirsan tahay wuxuu leeyahay dabeecad kasta oo xun. Himada iyo niyadda ma gaarayo qofka ilaa uu ka tago 3 arrimood. Midda koowaad, caadooyinka, xeerarka iyo dhaqamada ay dadku curiyeen. Midda labaad, inuu ka fogaado wax kasta oo caqabad ku ah himiladiisa iyo jidkiisa, kuna dadaalo inuu ka go'o waxyaabahaas. Midda saddexaad, inuu jaro xiriirada saaxiibada ee qofka ka hor istaagaya inuu si daacad ah ugu xirmo wax uu doonayo. Si kooban, nuxurka murtida. Si aad u xaqiijiso hamiga dhabta ah iyo niyadda daacadda ah ee aad ku doonayso gaaridda hadafka, waa inaad iska daysaa wax kasta oo hor istaaga ama mashquulin karo. Ha ahaadeen caadooyin, caqabado ama xiriiro aad la leedahay dad kale, si aad si buuxda diiradda ugu saarto waddada iyo hadafka aad doonayso inaad gaarto.